بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد ولا ليال الله سبحانه وتعالى يا ماتسن إلهي بانكم هذينا سبحانه وتعالى ما أنت برنامج كنا أن هذينا ما أنت أسوق هذينا وحاوية كورونا فيروس أو عذر كان هذا فافي هاي أو دنيا كفافي هاي أو شينها كسب باللاودي أيان ما أنت كتابنينا سواء أيو كو إمادة هرت إسكمي إمادة horta cudur iskama imaada ilaa sabab uu ku imaadaa jiro nacay ahaataba ma imaada ilaa sabab ay ku imaadaa sababta ay ku imaada in la raadiyo sidii looga hortag waa laga marmaan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala adoomiisa ma ciqaabo oo cadaab uma keena oo cudurooyin uma keena ilaa ayaga markay gacmooda kula imaadaan oo la kari waaya ayaas ilaahay mutaxaama ayo ikhwa marka walaalayaal cudurkan horta wuxuu ka soo bilowday China ayuu ka soo bilowday anakana kulli muslimiinta ilaahay horta naga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay baan ka magan galaynaa inuu ilaahay naga badbaadiyo muslimiinta meel ay joogaanba dunida meel ay ugu sugan yihiinba kuwa Afrika jooga kuwa Yurub jooga kulli ilaahay ka badbaadiyo cudurkan China sababta ugu soo bilowday waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan abuuray oo aragteen oo cirkan tiir la'aanta taagay dhulkan fidiyay weyninka badan ayay waxay dhaheen ilaahayna ma jiro qiyaamana iyo aakhiro wax Allahna ma jiro aakhiro oo anaka rumaysanahay inay jirto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo tagi doono oo maxkamad ilaahay la tagi doono ayay ka beeniyeen ay waxay leeyihiin ma jirto aakhirana ma jirto ilaahay adduunka maamulana ma jiro waa kalimatul kufri waaye gaalnimada awal ku jireen bay gaalnimo kale u sii ziyaadisay marka ilaahay gooda ay ku caasiyeen oo ilaahay amarkiisa diideen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dhaheen ma jiro ilaahay marka maxaa laga filaa marka inuu ciqaabo sooma markaas waxa lagu ciqaabi cudurooyin lagu ciqaabi baabka labaadna oo cudurkan loogu ciqaabi Chinese waxa kamid ahay dadka muslimiinta oo awliida ilaahay bay ku dunteen awliida ilaahay la kari waay ilaahay adoomihiisa ninka la dagaalamo la colaytamana dagaal lagu qaadi doona xadiis qudsi ilaahay wuxuu leeyahay man aada li waliyan faqad aadantahu bil harbi qofkii awliidayda kuwa kamid laga kari waaya ogeysiis ayaan bixinayaa ogaada inaan dagaal ku qaadi doono marka ilaahay baa dagaal ku qaaday warka nuxurkiisa intaan waaya maxay yeelay sababta cudurkan waa ayaga uu soo bilowday waxa waaye waxay dhaheen ilaahay ma jiro mid labaadna waxay ku xijiyeen aakhiro waxa Allah ma jirto oo meel isku taga malaha marka cadaab ayaa markuu imaaday taas waa mid koowaad cadaabka ay ku helaan cadaabka labaadna waxay ku heleen dadka muslimiinta oo gumaadeen oo rafaadiyeen oo ku tunteen oo ras xariiriyeen ayaa ayadana cadaab u keentay maxaa yeelay ninkii dadka muslimiinta cadaaba asagana cadaab ayaa u imaadi doono xadiidkaasna waa soo akhrinay xadiis qudsiga ah ninkii awliid ilaahay laga kari waaya ilaahay baa dagaal ku qaadi doono marka ilaahay naga badbaadiyo muslimiinay cudurka ilaahu naga qaba ilaahay cudurkan muslimiinta meel ay joogaan ilaahu geeska mari ilaahu muslimiinta meel walba ay ku nool yihiin Afrika iyo Yurub iyo Asia iyo meel walba meel ay joogaan ilaahu ka badbaadi ilaahay naga badbaadiyo cudurkan ilaahay geeska naga mariyo shartiisa ilaahay geeska naga mariyo ilaahay nama soo gaarsiiyo anakana muslimiintana waxaan ugu baaqayaa inay ilaahay rumeeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga loo tagi doona qiyaamo asaga la hor istaagi doona adduunkan iyo beentiis way dhamaan doontaa waa laga tagi doona meesha meel la jooga maaha ilaahay waa la hor istaagi shirka kuma jiro ilaahay waa loo tagi doona asaga ayaana abuuray asaga ayaan u laabani doonaa taasaa la ogaada nin walbowna wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka al-yaqiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka muslimiintu waxaan ugu baaqayaa meel ay joogaan ba horta ilaahay in la caabudo oo ilaa yaqiinta ay nooga imaada inaan ilaahay caabudno waaya wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka al-yaqiin wala tamutunna illa wa antum muslimuun anakoo muslimiin ahayn aan dhimin muslimiinay mid kale oo iidan aan ku qatimay waxa waaye magaalada aan deganahay oo Mandheera aan deganahay aydan waxaan ugu baaqayaa dadka ilaahay ku caasiyeen oo xarig ilaahay ka furteen oo shirkiyaadka iyo waxyaalaha qurafaadka iyo bidcooyinka iyo xaraanta suubinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo laabteena oo ilaahay ka baqeena ilaahay subxaanahu wa tacaala hadaa xarigiisa laga furto oo xarig ilaahay la diido kitaabka ilaahay la diido sunnada la diido cadaab ay imaadi doono marka fidnada hadaa laga hortagi waayana oo ilaahay la bari waayo fidnada way sii ziyaadaysaa walaalayaal marka dadka kuwa muqaadaraadka isticmaala qashinka isticmaala waxyaabaha xum darbiga la fadhiya zinada meelaha la fadhiya qamrada meelaha lagu gadgada guriyada qamrada lagu gadgada nimanka iskale waxaan ugu baaqaynaa ilaahay ka baqeena ilaahay lagu caasiyo cadaab ay imaadaya dhibkana kulli qofkeena kuma kaani doono
wuxuu dadka dhan uu saameeyni doonaa hadaa qofka dhaalimka dhibkooda gacanta la qaban waayo fasaadka imaada iyo dhibka imaada umada kulli waa saameeyni doonaa marka muslimiinta ilaahay xarigiisa in la qabsado laga marmaan kuwa caasiyalka oo ilaahay xarigiisa ka furteen oo zinada iyo waxyaabaha fuxshiga suubinaya oo qamrada meelaha ku gadgaday way bateen oo aad bay u badan yihiin marka zinadaasna laga istaaga xaaraanta laga istaaga ilaahay mar walba la bariya ilaahay hadaa xarigiisa ka furto qatara imaadi doonto ilaahay subhanahu wa ta'ala ummad ma cadaaba oo cadaab uma keena ilaa ay kay cadaab kale imaadaan marka kulli intaas aad ugu baxaya ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan barina in badan masaajida ilaahay baan ku bariyayna marka maanta waxaan u soo qaadanay barnaamijkeena inaan uga hadalno cudurkaas la dhaho coronavirus oo China ka soo bilowday oo hadda wadamaha Afrika iyo Yurub kulli ku fidahaya ayaan ka hadlaynay sababta keentana waxa waaye ilaahay markii la diiday oo la dhahay ilaahay ma jiro ilaahay subhanahu wa ta'ala oo adduunkan abuuray oo saan noo taagay oo bilaadanka saan quraxdan u sawiri oo u abuuray ayaa waxa la dhahay ma jiro oo macnaha ay leeyihiin marka ayuha ikhwa marka waxa la rabaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiisa la qaato nabiga amarkiisa la qaato laga marmaan atiicu allah wa atiicu rasuul ilaahay subhanahu wa ta'ala waajira oo ilaahay gina abuuray waayo oo ilaahay la laabana waayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh